munaasabadan oo ay xilka kula kala wareegayeen wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka Khaatumo Kayse Cabdi Yuusuf iyo wasiirkan cusub ee la wareegay xilka ayaa waxay ka dhacday tulada Balcad oo hoos timaada magaalada Buuhoodle. munaasabadan xil wareejinta ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Khaatumo Maxamuud Sheekh Cumar, wasiirro xildhibaano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyntiina waxaa munaasabada ka hadlay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Kayse Cabdi Yuusuf. anigu aan Kayse Cabdi Yuusuf wasiirkii hore arrimaha gudaha Khaatumo aan jecelahay in aan xilkii ku wareejiyo wasiirka cusub ee hadda loo magacaabay wasaaradda arrimaha gudaha mudane Axmed Maxamuud Doolaal iyadoo ilaa saakaba xil wareejinta aan ku jirnay. waxa xafladan hadda saxaafadu ay nagala soo qayb gashay iyo ummadda reer Khaatumo iyo ummadda Soomaaliyeed dibadda iyo gudaha nagala soo ay ka marxaati kici doonaan inaan walaalkay xilkii si toos ah ugu wareejiyay. waa kugu soo dhaweynaya wasaaradda arrimaha gudaha Khaatumo State of Somalia. waxaa isaguna halka ka hadlay wasiirkan cusub ee la wareegay xilka Axmed Maxamuud Doolaal oo sheegay in uu ku faraxsan yahay xilkan uu la wareegay. waa nin xil qaaday eed qaad baa leeyahay waa ka gudoomiyay wixii wasaaradda arrimaha gudaha lahayd. waxaan kaloo ku faraxsanahay inaad weli golaha wasiirada ka tirsan tahay. wixii su'aalaygu ka harsan aan waqti u helay inaan ku weydiiyo wasaaradda arrimaha gudaha leedahay. insha Allah waa wada shaqaynaynaa. Khaatumona waxaa u yaala hawl aad u ballaaran haddaynu golaha wasiirada nahay, haddaynu nahay dadweynaheeda, haddaynu nahay taageerayaasheeda. hawl weyn baa inoo taala. ugu dambeyntiina waxaa munaasabada soo gabagabeeyay gudoomiyaha baarlamaanka Khaatumo Maxamuud Sheekh Cumar. wasiirkii hore arrimaha gudaha Kayse Cabdi Yuusuf waxaana wasiirka amniga uu ku wareejinayo wasiirka cusub ee arrimaha gudaha Axmed Maxamuud Doolaal. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. waxaanuna leenahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu idin fududeeyo xilalka cusub ee ballaaran ee ummaddiinu idin dhiibatay idinkuna aamintay sida idinku aamintay inaad idina u amni gelisaan kuna shaqaysaan dadaalka iyo horumarka iyo ka yool gaadhista ujeedooyinka ama yuusan haynin xilka qofka loo dhiibaa waa wasaarad yar oo gaar ah, laakiin waxaa ka xil weyn ka shacabka ah ee halkaa maraya nooc kasta oo hay-adeed mas'uulka uga ah inuu ilaaliyo. hadduu amni yahay, hadduu arrimo bulsho yahay, hadduu arrimo gudood yahay, inay kala shaqeeyaan isla garab taagaan. Maxamed Cali Bile.